waayahay maamulka iskuulka waxay ii sheegeen in la isaga baahan yahay lacagta dhismaha waxay kaloo soo gudbiyeen inuu lacagtaas bixiyey hal qof oo keliya yaaba halkaas qof aniga macalin boqolkiiba boqol adiga waa hooyo oo kuweyd joogto aabe oo maaraadka jooga arrintuu sheegtay aabbaa wuxuu dhahay anaa wax ka qaadanayo aabba kaasa ka ahaada haddii kale hab la waayoba waa salaama reerkaaga iyo aabbaha iyo adigaba waa laydinka guddooma tabarcaddaas macalino haye hadal ninkaas aabihiisa hadduu mukeef noo gelin lahay waa ka seexan lahaa wallaahi daraalla waraa annaga waxaas noola imaanaya meelaa ku hoyt maa raadinaysaa insha allah saldhigga degmadahoodana ku hoynay dhammaanteen ma bixisa lacagta dhismaha lacagta dhismaha waa bixiyey anaa waxaas kaa dhegaysanaya meesha waxaa ku qoran in hal qof oo bixiy halkaas qofna maxamed kaafi waayo waraa xataa waraa in cadayskani waxaas macalin looma baan inaa qeeliso macalin cusub aad tahay ardayda waa ku nacaya haddii kale dhib male anaa ka bixina ayagoo dhan marar maxaan u dhiibaas anaa bixinay intana la jiidaa ma sugays farmaajo ii geeya anaga aamus geedii cirka laga soo riday farmaajo ii geedaada maahan yaa xigo maxaa ani xitaa maxaa ani xitaa adi hooyadaa ma aabaha kuweyt ka soo wacay may wallaahi haye maxaa rabtaa marka ani hooyadii xalay aabihii saliid karkaas ku shubtay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun gacmihiisa soo kuduteen wejigiisa hore iyo gadaal isku mid waay qof kale u ekaaday istaalaa la orday xubnaha qaara la laayahay waddankaa waxba ma yaalo aabihii laad waa la gari laayahay si fiican halii dhegeysta adi iyo dibigaanba waxaa idinka rabaa inta daabuurka la gaarin inaa lacagta dhismaha bixisiin ma maqloosaa dibiga adaa dibi